intaasoo waxa haysto haddii anigana aan ka faa'iidaysto oo fashionna marna ka xaragoodo marna caafimaadkayga iyo daryeelkayga iyo quruxdayda ka shaqeeyo haddana walaalo kale uga faa'iideeyo so intiina danaynaysa ganacsiga haddii aadan horey u soo qaadan buug iyo qalin soo agdhig wax allaale waxaan ka hadlayo su'aal kasta oo kugu soo dhacda insha allah qofka videogan kula soo wadaagay ayaa u diraysaa so haddeertaan waxaan leeyahay screen share powerpointigaa soo saaraya insha allah saa si fiican u fahantaan dhanka ganacsiga sida waxaan looga ganacsado okay halkan waxaa ooga jeedaan kombanigeenna waxyaraa idin dulmaraya waa kana kombanigeenna xafiiskan waa xafiiskeenna xarunteena ugu weyn oo ku taalo Toronto okay Ottawa lagu aas-aasay Canada laakiin Toronto xarunteena ugu yaala alaabteena waa kaasa u jeedaan dhowr xabaa linka tusaya bal fiiri waa alaabteena feeriga ah ee dadka lacagleyda ku raaxaystaan maasha allah okay sidoo kale halkan maxaa ku qoran in haba yaraatee wax lagu lehayn deen kombaniyaasha badankood markay galayaan deen bay qaataan weligan deen laguma qaadan waxaa lagu aas-aasa lacagta ninka kombanigeena iska leh CEO-geena hadhowta kadibna wax dhaqaalaha soo galaa ku filnaaday okay maxaan joognaa 200 oo wadan subxaan allah okay halkaana waxay ka hadlaysaa sida dhaqaalaha looga sameeyo aan mar dhow ka hadli doono insha allah biidnillaahi kariim halkan ayaa uga jeedaan ninka kombanigeena iska leh oo dhaho Ramin Masgarlu waa qofka dhan oo aas-aasay okay halkaas uga jeedaan iyo in allaale inta guul uu soo hoysiiyey koo waxa waa isaga wuxuu ciyaari jiray lagdinta wuxuu raayay ninkan 112 bilad uu ku raayay Canada oo dhan uu ciyaari jiray lagdinta okay 25 sano uu jiray markuu millionaire noqday 5 company oo uu soo dhisay ilaa iyo hadhowta kiisa sameeyey yuu soo saaray 22 qof 12 qof oo ah millionaire uu soo saaray halkaa maxaa ku qoran buug uu qoray oo la dhaho Forensic Networker oo markaa company ku soo gashid aadin bari doono insha allah halkaana muxuu koob ku qaaday conversation sida dhaqaalaha loo sameeyo okay so halkaan waxyaabaha uu laga hadlay maxaa waaye uu noqday in lagu soo qaatay journalka la dhaho American Business Journal nin Canada joogo oo CEO lagu soo qaatay hab yaraatee ma jirto hal mar kaliya lagu soo qaado laba journal lagu soo qaatay nin company-geena iska leh okay hadday noqoto waxa la dhaho MLM-ka number 2 buu galay maxaa kaloo lagu wareystay Brian Tracy show Brian Tracy waxa waa nin oo sameeyo hadday noqoto dhiirigelinta oo caan ah okay lagu wareystay muxuu kaloo ku jiraa network marketing hall of fame ka dhan network marketing ka dhan ku jira halkaana muxuu ku guuleystay inuu noqday loo doortay inuu noqdo entrepreneur of the year okay ganacsaha ugu sanadka ugu fiicnaa halkan maxaa uga jeedaan halkan waxa waaye guul aan soo hoysiina sanadkii la soo dhaafay oo runtii aniga iyo teamkayga ay ka qaateen door aad iyo aad u weyn wala caada company-ga ninka iska leh Ramin si toos oo cad ah iigu hambariyay aniga teamkeena u dhahay haddayna adinka ahayn maynu gaari lahayn subxaanallah okay halkan maxaa waaye in company-geena loo doortay saa u jeedaan bishii 8 sanadkii la soo dhaafay 2020kii in loo doortay number 1 inuu noqday wax allaale waxa network marketing company-yaashan badankeen waynu naqaanaa ama waynu maqalnay hadda company cusub ah soo bax alaab iibiyo kulli inuu koob ka qaaday okay maxaa kale nin company-geena iska leh Ramin inuu noqday CEO-ga ugu fiican markay noqoto training inuu dadkiisa tababaro okay so intaas isku kalsan so maanta company-ga idin sharxeeno waxa waaye company-ga la isku raacay in uu yahay company-ga ugu fiican markay noqoto network marketing iyo ninka iska inuu yahay ninka ugu training fiican so always waxa dhahaa aniga waxa you are with the best of the best okay loo wuxuu sareyso okay so hadda marka waxaynu u guda galeynaa dhankii ganacsiga alaabtii waa kana goojadii ugu horeysa idin sharxay waa taas oo eg tahay halkan maxaa kaga muuqdo NPN number waxa waaye natural product number oo Canada qofka markii uu joogo wasaaradda caafimaadka Canada ay bixiso okay wasaaradda caafimaadka Canada ay bixiso NPN numberka sidoo kale 100% exclusive rights ah haysanaa annaga qof aan ahayn kama heli kartid okay so halkan waxa ku qoran waxyaabaha faa'iidooyinka laga helo goojadeena hadday noqoto ilowshihii hadday noqoto difaaci inay ku dhisayso dad badan oo wadna xanuun qabay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadna xanuunka oo gargaaray kansarkan ragga galo subxaanallah xiidmaha waxa galo macaankii kor xanuunkii subxaanallah waxa ku dari kartaa ay ku leeyihiin
skin care-kaaga dad badan kareemada inuu kimarsanaayo way ku darsadaan waa lagu dari karaa maxaa kale u fiican yahay ciridka barara okay bararka gala maxaa kale deodorant ayaan dhawad aniga deodorant iga dhamaatay waa isticmaalay wallahi maalintii oo dhan fresh waa yaabay waxa loo isticmaalaa kilkilaha xataa urka xataa way baabi'isaa okay maxaa kale wax allaale waxa raashiska nabraha xajiinta busbuska waxaasoo dhan korkaa laga mariyaa yar iyo weyn kanna maxaa waaye baabasiirka aad iyo aad ugu fiican tahay timaha cidiyaha ani waaga hore waa xasuustaa because ironkayga yaraa cidiyahayga way go'i jireen cidiyahayga way isoo baxeen subxaanallah okay kareemada hadday ka hadlayna waa ka saasoo ogyihiin okay daawada cadayga saasoo u eg tahay shaambada waxaa laga yaaba marka intusinaa in si fiican loo arkeynin shaambadan waa tii ragga maasha allah tii haweenka waa tanaa okay maasha allah spraygeena waa kana oo runtii aad iyo aad muhiim u ah okay halkan maxaa uga jeedaa inuu yahay 100% natural alcohol hab yaraata inaysan ku jirin okay subxaanallah ilaahay noo gargaaray vegan inay tahay nano free inay tahay wax kasta okay fashionkeena waa kan fashion show waa la sameeyey hadda ka hor alaabtan ay qabaan dadkaas oo dhan waxyaabuhu ku guulaysta kompanigeena maxaa ka mid ah golden globe in bilad laga siiyo waa meesha dadka caanka ah ay filmaanta dhigaan lagu siiyo Toronto International Film Festival sanad walba isugu imaado International Emmy Awards The View show soo gala Fox meel kasta lagu soo qaato waxaana waa biladaha xafiiskeena Toronto aadid in israacada ku dhacay inta bilad uu kompanigeena soo raayay okay halka maxaa uga jeedaa dadka isticmaalay iyo waxyaabihii ka dareemeen haweeneydan waxa lagu leeyahay markay kareemadana soo baxeen waxay diyaar u ahayd inay isqasho 3 bilood gudahood fiiri saanay ahayd say noqoto iyo say noqoto fiiri imagine maanta 4 sano kadib soo eg tahay subxaanallah okay fiiri 9 cisho kadib timaha wiilasha walaalahay daawanayo timaha ragga fiiri 9 cisho kadib okay 30 cisho kaliya gudahood fiiri haweeneydan korkeeda soo ahaa daamankeeda si hadartaan yahay subxaanallah 11 bilood haweeneydan fiiri oo miisaankeeda soo dhimay 1 sano ka yar say ahayd iseen maanta tahay subxaanallah fiiri halkani 7 cisho gudahood dadka xajiinta qaba fiiri qofkan saa u jeedaan waa qof weyn oo da' 7 cisho kaliya labadooda gacmood soo noqoto before iyo after halkan yaa uga jeedaan wajigeeda loo jeedin waa aniga waxay siinaya waxaan galay qofka kaliya oo Soomaali oo muslim ah oo dadka waxa haysiye kamid amaanta subxaanallah halkan waxa haysiinooya boorsadeena oo Porsche lagu jecel yahay hadda way dhamaatay kalarkii madowga karada kala yaala aad iyo aad loo jecel yahay okay halkan waxa qabaa farantigeena asagana Porsche iyo saacada Porsche saacadan waa saacada ugu horeysan iibsaday marka company ku soo biiray 3 sano ka hor subxaanallah okay halkan waxa uga jeedaan haweeneydan ayba cunay 2 bilood gudahood eyga cunay barfiirisay noqotay dhakhtarkeedu wuu la yaabay subxaanallah waxaas waxa way goojadeena wayna qaadanaysa afka korkana way marsanaysa okay dabcan waa la tolay laakiin tolitaankii suu degdeg u noqday isla marka waa xasuustaa markay ku dhacdo dhibkan dhowr asbuuc kadib 2 asbuuc kadib camal online soo fadhiday waa garan weyne يعني قبل هراء أملينا ما كان سينوش شكت ترى هذا إيه بقى دور أسبوع كهر سبحان الله هل كان ويل كان جردي زمر كسان داود رنتي ميل بقى حنونته ويل يرى ولا يرى أمرك تضوي 8 سنة جري فواحد كل دعي واحد دهان الله بيش عذر تذكرت ما حد أنكوضه ويل كان وارك صوردي سمركو فيديو يسك حد لايو مركو بنانك عادايو ما ضحنا وحو كدو بنجري فلانها عادي مو سحرن جرين فلانada ilaa intaas soo asagoo dhan intaan un baa laga arki jiray waxaas waxa waaye wuxuu dareemi jiray yani embarrassment qof yar oo timahaysan sunihiisa xataa way dhamaadeen cudurka dartii fiiri suu ekaa maalintuu goojadeena bilaabay 2 bilood gudahood ilaahay subxaana wataala muxuu qadar waa kan maanta waa yaabaysaa isma dhehaysid quruxda dhalinyarnimadii iyo quruxnimadii ilaahay marka hore siiye uu maanta haystaa halkaa marka waxaa ku qoran page la dhaho Fountain of Life official intaan hadda in soo sheego waa in yara kumaanku qof oo ka hadlaysa soo qofkii cajaldan kula wadaago waxa leedahay page-kaas ugu dar asagoo Soomaalina waynu haysanaa la dhaho goojada Fountain of Life iyo faa'iidooyinkeeda halkaana waxa waa Safe Home Revolution alaabteeni kala oo dhan looga hadlaaya halkaana waxa waa company-geena Facebook-iisa Opulence Global gal adiga fiirso okay so hadda waxaynu guud galaynaa dhanka ganacsiga ما شاء الله أنت سو وناقة صوشك تفرحي هدي أنا ربوا وحنا إن صاقلوا أما أنا كان جناح صدق صدق وفي عن هرت أنت جناح سير لوجو دقلين صدق هذا النوع أو غيب قادن كرتمان تمحاوي كو إن نقطت مع ميشنا
yes qofka markuu noqdo macaamiisheena wuxuu helayaa intaasoo hadiyad ah ko maanta qofkii kuu soo diray websitekiisa markaa gashid oo alaab iibsatid oo $100 ugu yaraan ah maxaa ku siinaynaa 2,000 oo opulence points okay marna waa idiin sheegaa pointskaas waxaa ku samayn kartid maxaa kale $250 haddaa ku adeegatid waa haddii ugu badan $3 goojada Fountain of Life oo kale oo adigii qoyskaaga u iibiso oo kale maxaa halkan kaaga soo baxaayo waxaa lagu siinayaa 6,000 oo opulence points sidoo kale $500 haddaa ku adeegatid waa $6 goojada Fountain of Life okay maxaa ku siinaynaa 15,000 oo opulence points pointskan meeqay lacag ku yihiin maxaas lagu isticmaalaa labadan kun waxa waay $20 Canadian 60 kan waxa waay $60 Canadian kanna waxa waay $150 maxaa ku isticmaalay fashion alaabta maanta qowma ka heshay hadeertaana soo qaadanaysa adigoo xataa company ku jirin free u soo qaadanaysa waayo waxba naga iibsatay subhanallah su'aashu waxa waaye intaan marka waxa waay waa points lagu siinaa marka ugu horeyso haddaan soo noqdo maxaa dhacayo 3 bilood oo isku xigta markaa iibsato ugu yaraan $75 waa $1 goojada Fountain of Life oo kale ama 2 xabo daawacday right haddaa iibsato 3 bilood oo isku xigta bisha afraad laga bilaabo wax allaale waxaad iibsanaysid waxaa ku helaysaa 10% laga dhimaya ma aha alaabta aad gadanaysa kaliya waxaad doontid ka soo qaad maanta waxaa ka haysa boorsay kabo 10% laga dhimaya okay midda ugu dambaysa maxaa waaye runtii aniga shakhsiyan aad u jeclahay waxaan haysanaa wax la dhaho referral bonus maxay tahay taas imise jeer isweydii aadaa maqaayad markii kuugu horeysay maqaayadii aad uga soo heshay ama ha noqoto cuntadii ama ha noqoto dadka shaqaalaha ama ha noqoto quruxda iyo meesha muxuu dadka bini'aadanka sameeyaa bulacada Soomaaliyeed number 1 ku dhahay dadkan la wadaagnaa ha hebel iyo heblaayo shalay waxaan tagaa halka meel isku dhacayso halkaanay ka shidan tahay right snapchat meel kasta la soo dhigaa dadkii markaad u xayeysiisay marka ay tagaan meesha maqaayadaas maxay ku siiyaan maqaayadaas waxna ma ogaba adiga inaad tahay qofka keenay qofka dadkii la wadaagay annaga laakiin markasta markaa ka adeegatid website-keena waxaa lagu siinayaa link adiga gooni ku ah linkigaas baad la wadaagaysa asxaabtaada markii asxaabtaada iibsadaan wax allaale waxay iibsadaan 10% adaa iskale jeebkaagay soo galaysaa subxaanallah okay nooca labaad oo uga mid noqon kartay maanta maxaa waaye inaad noqotid waxa la dhaho retailer midaan waxa waaye qofka rabo alaabtii intii in ka jaban inuu ku helo hadhowtina sii iibiyo sidoo uga sameeyo dhaqaale yar taasna way ku furantahay so maxaa ku soo galaysaa haddaa Canada joogto waxa waaye $210 waxaana ku jira canshuurtii iyo delivery laakiin haddaa Canada ka baxsantaa waxa waaye $270 waxaad bixinaysaa delivery baa lagu saaray canshuurtaadu way ku jirtaa already okay intaasaa bixisa maxaa lagu siin website kaas isla second-ka aad soo gashid waxaa la wadaagaysaa in allaale inta aad kugu xiran markay galaan alaabta ay iibsadaan hadhowti waxaa leedahay faa'iidadii company-ga u geenaya adiga hal shaqo kaama galaayo maxaa kaloo lagu soo raacinayaa 5 xabo oo sample ah daawadeena adiga ah iyo 5 xabo oo sample ah ama test goojadeena Fountain of Life okay hal ama laba markaa qaadatid inta kale aad siisid dadkaas markay dhadhamiyaan alaabteena maadaama ay tayo leedahay markay dhadhamiyaan maxaa dhacayo way ku iimaanayaan waxay ku leeyihiin waa rabnaa okay maxaa kale halkan waxaa la socda buugaagtan buugan ugu horeeya waxa waaye fashion-keena waxa intu sinaayo oo dhan ilaa 22,000 oo alaab oo fashion ah haysanaa ama ha noqoto Posh ama Fairy buugaas oo free lagu siinaya oo meelaha aad dhigi kartid saloonada iyo meelaha la isugu taga maqaayadaha iyo dadka ay fariistaan okay halkaana maxaa ku qoran waxa waaye buuga ka hadlaya goojadeena Fountain of Life kan waa kareemadii waxa kale oo lagu soo raacinaa mid daawada cadiga alaabteena ay gadno oo dhan okay all right maanta laga bilaabo maxaa ku adeeganaysaa 20% discount okay dadkii banaanka jooga waxay bixinayaan sidoo kale 3 bilood oo isku xigta markaa ku adeegato u yaraan 150 maxay gooysaa xabad daawo cadi xabad goojada Fountain of Life waa adiga yani naftaada markaa u iibsatay bil walba bisha afraad laga bilaabo discountigaagii 20ka wuxuu isku bedelayaa 30% okay maxaa kaloo lagu siinayaa 10,000 oo opulence points 10kaas kun maxay u dhigantaa waa $100 Canadian maxaa ku gadanay fashion maanta laga bilaabo waa xaragoonaysa tan waxa waaye nooca looga mid noqdo shirkadda okay laba nooc oo kala jirtaan oo dadka badankooda u badan yihiin okay nooca waxa waaye koowaad waa mid ay dhahaan sa u jeedaa halkaas promoter okay
aniga shakhsiyan waxaan dhahaa kumeel gaar hadhowtaan idin sheegaa waxa u dhaho kumeel gaar halkan maxaa ku soo galaysaa $600 Canadian waxa ku jira shippingkii iyo canshuurtii intaana bixinay intaana laakiin lagu siinaa inta bixisa ka badan see ku dhacdo koo waxa lagu siinaa website-ka maxaa ku jiro in allaale inta alaaba ay tusinayaan shaqadaada maxaa waaye dadkii la wadaagi dadkii way geenayaan way galayaan way iibsanayaan company-ga u geenaya adiga faa'iido leedahay shaqadaada oo dhan maxaa waaye dadku in la wadaag maxaa kale shaambadii haweenka iyo doobi shaambadii ragga iyo doobi shaambadii xabada wacday ah goojadii 2 xabo iyo 2 oo sprayga maxaa kale $62 oo shopping credit ah iyo wala caada $100 oo shopping credit ah inta marka isku dartid waxaad arkaysaa lacagta aad bixisa iyo ka badan inay soo noqotay soo shilinka ma galin ganacsaana ku furan subhanallah maxaa kale 5 xabo oo ah sample ah ama test daawada adiga iyo 5 xabo oo goojadeena fountain of life oo sample ayadana dadka marka la wadaagtid halka maxaa kaaga soo baxay 10 macaamiil ah واي dadka badankood sa idin sheegay alaabteena markay dhadhamiyaan waa itus itaabsi ay dhadhamiyaan iyagoo ordaya ku imaanayaan okay halkaan sa u jeedid buwaagtii ageen lagu siinayo maxaa kale oo ku raacsan 30,000 oo Opulence points 30,000 maxaa u dhigmaan $300 Canadian oo maanta laga bilaabo faashka qawma ka heshay free ku soo qaadanaysa okay all right maxaa maanta laga bilaabo ku adeeganay 25% discount okay sidii oo kale 3 bilood oo isku xigta marka ku adeegato ugu yaraan 150 discountigaaga 25 aha bisha afraad laga bilaabo muxuu isku bedeli 35% okay hadda dib in kugu yara noqdo waxaan u bixiyo ku meel gaar package-kan dhexe maxaa waaye package-ka ugu dambeeya aan soo wado waxa waaye lifestyle advisor waa midka idin dhahayay teamkayga 90% way joogaan waxay u joogaanna waa tana waxay u joogaan waxa waaye qofka bil aadanka markuu yahay midkii ugu hooseeyay 200 ahaa midkii 600 ahaa ama kan dadka waa isku shaqo laakiin waa la kala faa'iido badan yahay ka soo qaad maanta waxa tahay shaqaale qofka asxaabta tihiin shaqada waxa laga yaabaa subax isku marna soo gashaan isku shaqo qabataan habeenkii isku mar hooyataan haddii qofkaas hadhowto uu jeegi markuu idin soo dhaco jeegiisa ka sareey maxaa dareemi it's not fair alada xaq ma aha right why because qof isku shaqanahay isku waqti galino waa saasoo kale waxay dadka halkan u joogaan waxa waaye waa kan kugu faa'iido badan because shaqadii waa isla halkii okay all right midkan maxaa lagu soo galaa 1500 Canadian hadaa kana joogtid hadaa kana ka baxsanta waa 1800 Canadian ama 1400 US hadaa joogto Europe iyo waxasi adiga xisaabsanayo okay inta markaa bixisid gabigeed way soo noqonay see ku soo noqonay koob maxaa lagu soo dirayaa shaambadii iyo doobi shaambadii haweenka shaambadii doobi shaambadii ragga 2 xabo daawa adagii kareemadii 3 xabo saddexda ugu muhiimsan kii waji lagu dhaqay kii maalintii iyo kii habeenkii 6 xabo goojada dadka badankood halba isticmaalaan inta ka hore ka iibiyaan iyo 6 xabo sprayga aha maxaa intaas ku raacsan $366 oo shopping credit oo waxa doontid ku gadanaysid okay maxaa kale oo ku raacsan 10 oo ah daawo adiga oo sample ah iyo 10 goojada ama sharoobada fountain of life sample halka maxaa kaga soo baxay 20 macmiil just like that okay dadka ay ku wada dhijinaysa kulwada ay ku ordaya ku imaanayaan ama waad iibinaysaa dadka kale ah dad hadaa doontid $2 $5 waxa doonta ku gadaysaa ama dadka waxa ku siin free laakiin maxaa uga dhigaysaa ku adkeynaysa inay isticmaalaan ilaa feedbackna kula soo wareegaan qofkii marka si dhab u isticmaalo hadhowta asaaba ka dalbanayo okay maxaa kale 47,000 oo Opulence points waa $470 Canadian oo free fashion hadaa ka hesho boorsada inta sinay kabiya inta sinay silsiladihi saacadihi caawa free oo la hoyanaysa adigana subhanallah maxaa kale $400 oo shopping credit ah oo sida 360 kan waxa doonto gadanaysid halkaan 400 waxa guud looga dhigay waxa waaye waa bonus maxaa bonus lagu bixiyay waxa hela kaliya qofkii ku bilaabo package kan haddii aad ku bilaawday labadii package oo kale waana ku bilaabi kartaa dabcan tanna waa imaan kartaa hadhowti inti ka dhineen lacagta unbaa buuxinay waa imaanay laakiin waxaad haysataa hal asbuuc sideena kaaga guban 400 haddii asbuuc kadiba halkan imaatinta hoos ka soo kacday 400 kaaga gubanay waa waxa dadka badankood halkan ugu bilaabaan deeq iyo deemba ee tan toos u bilaabaan sababtoo waa kan kugu faa'iido badan laba goorna waa meesha u soo socotid okay all right maxaa kale maanta laga bilaabo discountigaaga maxaa waaye 30% okay halkaana waxaan ka iloobo website-ki waa isla halkii kulligood website haysataa
oo maanta laga bilaabo dadka la wadaagaysid company-ga u geenaayo adigana faa'iida leedahay 30% ku adeeganay sidii oo kale 3 bilood oo isku xigta ugu yaraan markaa ku adeegato $150 discount-gaaga 30 ahaa wuxuu isku bedelayaa bisha afraad laga bilaabo 40% haddaa wax yar idiin dul istaago 150kaas maxaana lagu ku yiri ku adeegta waxaana lagu ku yiri ku adeegta ka soo qaad maanta waxaad tahay ganacsade waxaa furatay makhaayad bil walba inta aan la gaarin faa'iidadaada intee kharash kaa bixayso koo waxaa laga yaabaa inaad bixinayso kiradi labo dabcan alaabtii aad gadayso cuntada aad gadayso waa soo iibin saddex haddaa shaqaalihii mushaarkooda bixinaysaa afar haddii aad delivery samaysid alaabta geegeysid gaariga wuxuu kaaga baahan yahay insurance iyo gas guryaha aynu maanta degannahay badankeena maxaynu bixinaa kiro taleefanada aynu wadana maxaynu bixinaa biil adduunka oo dhan ku salaysan lama maqaloo lama arag qofku dhahaayo waxaan ahay ganacsade intaasoo faa'iida sameeya hab yaraatee kharash galama jirto ma dhicin soo dabcan ganacsiyaasha kaluu la mid yahay haddaa maanta dukaan furatid oo dhahda alaabna ma keenayo kiradana ma bixinayo korontadana ma bixinayo ma ganacsigaa ku jirtaa waa maya waa sidii oo kale 150 weli caada annaga ma aha xataa kharash waay alaabta aad ku gadanaysiyaa iska leh waa alaabtii aad iibisid aad adiga isticmaashid maxaa idiin sheegaan sheekadayda markay company-ga alaabta la ii keenay yuu ahaa qofkii ugu horeeyo isticmaalay aniga hooyaday macaan see marka u gadaysaa adiga waxaadan isticmaalin soo dabcan bil walba waxaa u baahan tahay inaad iibsad soo maa adiga isu hormarisid soomaalida waxay tahdaa qofka aad kabaha ka talinaysid kabihiisaa la fiiriyaa marka hore soo maa haye adiga haddaysa kaa muuqana caafimaadkii iyo quruxdii iyo fashonkii see qof kale oo gaday soo ugu yaraan adaaba ku adeeganayo 150kaas marka adigaysa kaa badnayn aniga familigeena waxaa ku baxda bil walba $250 laba musqulaa noo taala daawada cadagaynu dhiganaa goojada 2 ilaa 3 aan ugu dhamaato shaambada waa noo meel kareemada waa noo meel isbrayga hadda noo soo baxa waa meel soo 150 ka badan aa ku adeeganaya imise jeer isweydii baa tagtaa dukaamada ama Walmart ama heblow kale intaasoo lacag soo bixisa okay soo laba goor 150kaas way kaa bixi lahayd ma ku iibsatid wax dabiici ah kana ganacsanaysa hadhowti waa faa'iidaad waa waxayga wax lagu dar subhanallah soo waa kaasa okay all right halka waxa uga baxaya package-yaashi hadda waxaynu galaynaa sida dhaqaalaha looga sameeyo company-geena qofka meesha ugu sareysa marka uu gaaro wuxuu ka sameyn karaa 60,000 asbuuci 60,000 asbuuci markii sanad loo qeybiyo halkaas maxaa kaaga soo baxaayo 3 milyan iyo 120,000 intaa wala caada waxaan ku jirin hadiyadaha halka waxa uga jeedaan private jet diyaarad gooni ku ah yes adiga teamkaaga ku raaxaysanaysaan halka maxaa ka muuqdo markab gaariyaal la bixiyo intaasoo wax oo hadiyadu company-ga bixiya jirto mar dhow ka hadli doonaa hadiyadahaasoo dhan markii la isku daro qofka wuxuu sameyn karaa ilaa 4 milyan sanadkii aniga waxaa jirta su'aalay markaas dadkii weydiiyaan ilaa maalinta company-gan bilaabay saan hadda ahay oo ugu qanacsanahay oo ugu faraxsanahay baa dadku ugu sharxi jiray anigoo intaasoo in la ego been ku dareenin waxay dhahaan walaale markasta see ku dhacday intaasoo farxad iyo intaasoo energy ka muuqato waxa dhahay aniga subax kasta markaan soo kaco hal su'aal isweydiiyaa koo waxaan isxasuusiyaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimcadu isiiyo ilaahay wuxuu isiiyay fursad aan ka sameyn kara ilaa 4 milyan sanadkii insha Allah waxa isweydiiyaa walaale ilaahay fursadaan uu ku siiyay farax suudiye talo maanta ma u shaqaysanaysaa sidii intuu ilaahay kaaga tala galay aan ka sameeysid 4 milyan mise meelaa seexanee waxa sugaysaa qof kale inuu sameeyo because reality-ga maxaa waaye haddaanan aniga sameynayn yaa sameynaayo hebel iyo heblaayo because laba goorba fursaddii waa loo sameyn yahay waa wax lagu soo hordhigay waa adiga iyo kartidaada dabcan subax kasta maxaa go'aansadaa inaan u shaqaysto inaan ka sameeyo intuu ilaahay iga talagalay insha Allah okay so sida faa'iido looga sameeyo company-geena waa ilaa iyo 12 nooca ugu horeeya maxaa waaye retail profit waxa waaye Soomaalida waxaynu dhahnaa tafaariiq waa shay kastaad iibisid oo faa'iideeda leedahay ka soo qaad waxa maanta iibisay waxaan tusaale u qaadanaynaa goojadeena Fountain of Life maadaama faa'iido laga sameeyo ay tahay mid ugu fudud goojada ka soo qaad maanta waxaad iibisay $5 halkii dhalo waxaa saaran ugu yaraan $20 ama qofka markuu gacantayda saan ooga iibsado ama website-kayga ka iibsado okay $5 iibiye $20 ku dhufma halka kaga soo baxay $100
$10 iibisay maxalka kaaga soo baxay $200 $100 iibisay ka soo qaad waa tusaaladeeda ugu jeclahay bishaan ka soo qaad waxaan iibiyay $100 boqolkaas dalo markii lagu dhufto 20 maxay ii soo baxay $2,000 oo cad cid u haysta aysan jirin sidoo kale 200 aan iibiyay 4,000 soo kani marka ma laha xad laguma dhahayo jooji inta aad doonta iibin kartaa dad badan taas kaliya ka dhargeen ganacsigeena alaabtii soo iibiyaan si iibiyaan okay nooca labaad maxaa waay nooca labaad waxa waay markii dad aad ganacsigaaga u soo bandhigtid okay dadka marka u soo bandhigaysid ama waxay noqon karaan dad macaamiishaad ah oo ku dhahay walaalay ama walaalo waxaan rabaa inaan ku helo inta in ka jaban adiga marka qofkaaga wana u danaysa waxa leedahay marata inta ka jaban ku heshid ma igu soo biirtid oo maxay helaya waxaad helaysaa intii jabneeda aniga ku gadanay hadhowtina qof kale uga faa'iideeyay qofka hadduu maskaxdiisa isticmaalo muxuu leeyahay waxaan waa ogtahay wax tayo leh inaad u baahan tahay haddii intii aad haysatay ka yar aad ku gadatay intii ka jabneed dadka looga soo faa'iideysan maxaa waa wax lagu daray soo qofkii wuxuu ku leeyahay waa soo galay soo ka soo qaad adiga waxaad tahay lifestyle advisor qofka ugu sareeyo package ugu sareeyo waxa keento qof package ugu hooseeya muxuu company-ga ku siinayaa oo ku dhahayaa thank you $25 $25 qofka markii uu noqdo package-ka hoose maxaa la socday inuu dhahnay 5 xabo daawacada 5 xabo goojada oo sample ah soo maaha commission-kooda $25 okay kus alaabo qofka gatay labo qofkii package-ka dhexe ku soo galay $600 maxaa uu company ku siinayaa $100 ku dhahayo thank you qofkaana noo keentay ugu dambeyn qofka wuxuu dhahay adoo kala rabana noqdo anigana waxaan rabaa waxani faa'iidada ugu sarreysana ka sameeyo lifestyle advisor ku soo galay maxaa helaysaa 10 cisho kadib account-kaaga markaa furtid $250 kugu soo dhacaysa okay intaan marka waxa waaye sida dhexe looga sameeyo example halkan noo yaala maxaa waa ka soo qaad bishaan waxa keenta 4 qof xisaab male inta qof teamkeena sameysay 4 qof aa keentay 4 qof qofkii waxaynu dhahnay waxa ku saaran $250 soo ah markuu yahay lifestyle advisor halka maxaa kaaga soo baxay $1,000 oo cad yes waa sameyn kartaa waana la sameeyaa kan saddexaad maxaa waaye kan saddexaad runtii dad yar fahansan aniga shakhsiyan markaan ganacsiga soo galaayana wixii aad iyo aad ii soo jiitay ay tahay waay maadaama ay tahay waxa aniga aan bartay jaamacadda dhaqaalaha waxaan akhrin jiray dadka adduunka u dhaqaalo sareeya dadka adduunka u dhaqaalo sareeya waxay dhahaan top 2% boqolkiiba 2% adduunkan dhan xukunta markay noqoto dhaqaalaha dadkaas marka aan tixraacay sheekooyinkoodii waxaan ogaaday hal mid inay ka sameeyeen midaasna waxa waaye waxa la dhaho residual income dhaqaalaha dhaxalgalka ah dhaqaalaha dhaxalgalka ah waa wax haddii xataa adduunka maanta aad ka tagtid maadaama company-gan aad shirkad la tahay oo bil walba wax ku darsatid aad faa'iidadii ciyaalkooda ay dhaxal galaan okay soo u shaqeey maxaa waaye qofkan maanta aad keentay uu company-ga ka siiyay $250 ku dhahaya thank you maadaama ay tahay dilaalkaaga qofkan ma imaan lahayn haddaysan adiga ahayn soo ma dilaalkaagii $250 uu ahaa lacagtaas waa one time bonus hal mar lagu siinaa qofka maxay idin la tahay inuu sameynayo wax uu iibsan wax uu iibin qof uu soo galin haye qofku soo galiyana muxuu sameynayaa in allaale intii adiga aad samaysay qofba qofka kale wuxuu sameeyo qofka samxaa wacad 40 milyan haye adiga marka maadaama aad qofkan qofkii keenay qofka waagi bariya iyo gobolkii dhac la shaqeynayo ama trainingkiisa ha noqoto ama alaabta sida loo sharx ha noqoto ama dad si loo register ha noqoto waagi bariya gobolkii dhac shaqa ku jirtaan qofkaas markii uu shaqeeyo dadkii uu keenana ay shaqeeyaan maxaad ku leedahay wax allaale waxa ay sameeyaan in allaale inta ka hooseysa boqolkiiba 8 iyo bara loo siinaya halkaas dad badan markay fahansaneen network marketing su'aalay ka keenaan su'aalahaasna wax kale ma aha aniga markii aan tixraacay waxa waaye aqoon daro qofka markuu waxa ka madow yahay uu ka madow yahay ha marka aqoontaas waxa waaye dadku waxay iska dhacsiinayaan haddii uu qofkii saas sameeyo dad hoostiisa yaalo wax uu ka helo waxay u maleeyaan qofkii oonan shaqeynin asagoo barkinta u dheer tahay in la siinayo dadkan waa dadkii aan la shaqeynaysay hal qof ama tiimkaaga ahaado ama 1 qof waagi bariya iyo gobolkii dhac shaqa ku jirtaan dadkeena waxyaabaha kale ay fahansaneen waxa waaye network marketing ma u maleeyaan inay tahay shaqo maanta aniga haddii subax kasta aan u kalahayo office oo aan sameynayo waxa aan sameeyo maanta dad train gareynayo dad wax u sharxayo dad wax la iibinayo waxa la ilaha gabadhaas xoogeeda shaqaysanaysa laakiin maadaama aan gurigeyga joogo computerkan aan haysto ama cell phone-kayga dadka waxay la tahay lacag free inaad dalanooyo wax free lama dhaho ma jirto
wala caadka waxaan kula talnaa anaga walaalay ama walaalow haddii aadan shaqa diyaar u ahayn fadlan ha nagu soo biirin because qofka markuu nagu soo biiro uusan far qaadin asna wuu khasaare annagana waa khasaarnay dadka waxyaabayna weydiiyaan waxa waaye ganacsigeena khasaare ma leeyahay yes maxay tahay khasaare mataqaanaa haddaadan afkaada kala furin yes ganacsigeena oo dhan wuxuu ku salaysan yahay dadka inaa gaarsiisay kii qaatay kii kale ilaahay subxaanahu watacaala u taala shaqadaada ma aha dadka unbaa gaarsiinaysaa wanaagii horumarkii iyo caafimaadkii okay so midaan waa midaas oo ah 8.5% boqolkiiba 8 iyo bar inaan ku leedahay in allaale inta dad oo tiimkaaga ah in allaale intay shaqaynayaan okay midda afraad maxaa waaye waxaa la dhahaa personal team bonus midaan waxaa rabaa intiina hadeertaan isdhehaysa alla waxaa rabaa packageka hoose ama kan dhexe inaan kusoo galo ina idin qeexo muhiimadda ee leedahay packagekeena ugu sarreeya lifestyle advisor okay muhiimadda ee leedahay waa kana kasoo qaad maanta aniga waxaa keena 10 qof 10kaas waxay kusoo galeen retailer packageka ugu hooseysay 200 200 qofka markuu kusoo galo discountigiisa muxuu ahaa 20 haye 10% ka maqan 20kaas marka qof 10% ka maqan kasoo qaad 10 qof aan keenay markii la fiiriyo bishaan adeegoodii la isku egeeyay waxay gaartay 5,000 5,000 markii laga jaro 10% maxaa ku soo baxaayo $500 lacagtaas waa lacagtii dadkan company-ga uu ka reebay maadaama discountigooda uu yar yahay company-ga muxuu ku sameeynaya idinla tahay 500 ma saa qaadanaya may yuu siinaya aniga why dadkan anaa keenay faa'iidadii uu company ugu talagalan way ka faa'iideysan waayeen soo maaha so intuu asaga qaadan lahaa anuu ii soo celinaya waa waxaan dadka markasta kula talino packageka ugu sarreeya qaata sidii linkaga reeban 10% maxaa linkaga reebaya midaana waa dadka ku haminaya inay kusoo galaan packageka dhexe sidii oo kale kasoo qaad maanta waxaan keenay 10 qof 10kaas qof adeegooda markii la isku daray 5,000 u gaaray 5,000 waxaa laga goynayaa 5% because qofka markuu yahay packageka dhexe discountigiisa waa 25 kaliya meesha 30 heli kare 5,000 markii laga gooyo 5% maxaa ku soo baxaya $250 $250 again iyo company ma qaadanayo may anuu isiinayo okay so tan waxay qeexaysaa muhiimadda ee leedahay inaad noqotid lifestyle advisor sidii aad u heshid faa'iidada ugu fiican okay midka shanaad maxay tahay midaan waxaa la dhahaa MGRS waxa waaye runtii mid aad iyo aad muhiim u ah oo saldhigna u ah ganacsigaaga waxyaabihii aniga markaan ganacsiga soo galay lagula taliyay bil walba ha ka moogaanin maxay tahay MGRS waxa waaye in allaale inta faa'iido company-geena soo gasho sanad walba bil walba 200 oo wadan markay soo aruurto waxaa laga siinayaa ama 1 share ama 2 share ama 3 share waxay ku xiran tahay levelkaaga soo caawa haddaad daawanaysid oo ku soo gashay lifestyle advisor haddaada lifestyle advisor ahayn package ugu sarreysay uma tartami kartid faa'iidadan again waa waxay muhiim u tahay inaad ku bilowdo lifestyle advisor haye caawa haddaad kusoo biirtid waxaa go'aansanaysaa insha allah biidnillaahi kariim bishaan inaysan ku dhaafin lifestyle advisor okay waxaan ka wadaa MGRS inaysan ku dhaafin okay midka lixaad maxaa waaye yaa jeclaan lahaa inuu ku xaragoodo gaari oo free ah oo shilin ka bixin qof kasta right bil walba waxaa samayn kartaa $500 Canadian ilaa iyo $4,000 bil walba dadka waxayna weydiiyaan ilaa intee bay soconay bonuskaas il allaale intii aad shaqaynaysid bil walba shaqada lagaaga baahnaa haddii aad samaysid waa helaysaa markaa company kusoo biirtid aad lagu barayaa waxa lagaaga baahan yahay saa u keentid dadkaanaad arkaysaan waa dadkii ku guulaystay gaariyaasha okay waana in yar inta guulaysanaysa waa yaabaysaa hadda 2 cisho ka hor waxa u duwaldegaynay dadkii bishii la soo dhaafay 20 qof keentay gaari free ah oo aniga kamid ahay okay so midkan yaa waaye waxaa la dhahaa Renelia waa youngest millionaire waa dadka millionaire-yaasha company-geena ninka ugu yar ayaan dhaweyd 40 sano gaaray halkaas maxaa yaala gaarigiisa waxa waaye Tesla waa $200,000 subax kasta soo kacdid guriga hortiisa waxa yaala $200,000 gaari ah aan shilin ka bixin subhanallah halkan yaa waaye haweeney iyo ninkeeda oo waa Philippine intiina taqaan waa taqaana Philippine wadamada waxa waaye dhaqaalahooda ugu hooseeyo ayagana way keeneen walaal ciyaal badan ay leeyihiin waxa waa Soomaali Philippine waa Soomaaliyo kala ma sha Allah inoo badan ay leeyihiin ayagana way dadaaleen waa kaas gaarigooda free soo qaateen gabadhaani wiilkan waxay hortaagan yihiin xafiiskeena Toronto ayagana waa kaas gaarigooda soo qaateen haweeneydan ayadana waa kana Singapore ay joogtaa waa runtii dad qof aad iyo aad u fiican oo markaas ila taliso
ayadana waa kaas gaarigeeda waa free fiiri odagaanay ha 70 sano uu sii cagacageenaya taasi waxay ku cadeynaysaa in ganacsigeena la kala lahayn yaa rag yaa dumar yaa yar yaa weyn waa qof ka sii daalkiis asagana waa kaas gaarigiis free kusoo tuuray okay ninkaana sidoo kale asagana Filipino jooga waa kaas gaarigiis kusoo tuuray okay all right nooca toddobaad waxa waaye luxury cruise yaa jeclaan lahaa markabkaas inuu raaco qof kasta right 2019 ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadar inaan noqday qofkii Soomaali ugu horeysay oo raacday okay aniga dad intaas oo qof adduun weynaha raacday ana Soomaali ka ahaa sanadkii la soo dhaafay 2020 maadaama uu cudurkan jiray lama aadin xisaab male inta qof teamkeena heerkii laga rabay gaaray LD2 so again hadaa daawanaysid qofkii ku hula wadaaga ajarada marka soo gashay ganacsiga waxa leedahay LD2 see ku gaara insha Allah suura saa badan gaar sidii markabka soo socda adigana nool raacday insha Allah okay waa xasuustaa markaas marka raacnay waxaan ka bilaabnay Miami Florida Mareykanka magaalo ku taalo waxaan tagnay Bahamas waxaan tagnay Coco Cay qol kasta marka waxa yaalo laba sariir anigu waxa la dajiyay gabar Rwandiisa gabadhii markaan wareystay waxay ii sheegtay inay tahay hooyo afar ciyaal haysato waa xasuustaa English yar ay ku hadlaysay Faransiis iyo afkeeda hooyo taasi maxay cadeen u tahay company-geena inaan la kala jecleen yaa English ku hadlo yaa Canada ka imaaday yaa jaamacad ka soo baxay hab yaraatay waa adiga iyo kartidaada halkan maxaa in kaga muuqda u jeedaan diyaarad ay ku jiraan dhowr qof teamkan waxa waaye teamka Nigeria 2 sano isku xigta Nigeria waxay ahayd number 1 company-geena Canada ka aasantay ay ka badiyeen ninkan dhex fadhiya oo shaatiga guduudka qabo waxa waa ninka company-geena iskale oo Ramin CEO-geena waxyaabaha aniga isku dhiirigeliye kamid tahay sawirka marka arko waxa dhaha wow teamkaas waa African ilaa ay Africa joogaan heerkaas ay gaareen in diyaarad private oo ayaga teamkooda lagu qaado haddii ayaga sameeyeen Allah hadna waa sameyn kartaa isdhaha subhanallah okay halkaana maxaa waaye waa vacation loo kaxay dadka LD3 iyo wixii ka sareeya oo hal asbuuc soo raaxaysanaysid ilaa ay haysatid waxay dhahaan butler waxa waaye dadka ku shaqeynaya batoon yar taabane qof ordaayo maxaa u baahan tahay waxaas nooc waxa iri waa jannadii adduunka miya subhanallah adduunka markaan yaraay loo sheegi jiray dadka jannada wax allaala waxay dalbadaan maskaxda ugu soo dhacdaa loo keenaa waxa iri matii adduunka subhanallah hay halkaana maxaa waaye dadkii raacay markabkii dhowr sano ka hor okay halkaana maxaa waaye nooca sideedaad oo aan dhaqaalaha u sameeyno hadayna waxaan ka hadlaayay fashion inaan ku helo fashion free waa kana cadeynti wax allaale waxa halkaas yaalo maanta laga bilaabo adigana waxa ku heli kartaa free kabahana u jeedaan waa kabihii ragga oo fairy wala caad qaaliga aha luxury oo kiyaalahan silsiladan alaabta halkan taalo badankood ani waan haystaa kabahana ayagoo cagaara haystaa subhanallah borsada waa tii aan haystay gaduudna waa haystaa guriga taala madowna waa tan aniga qabay markaan haday waxay siinay okay points kan waa ka saa u helaysid okay so saa marka u soo gashid ka bilaabaysaa ilaa iyo markasta aad shaqaysid waa helaysaa okay noocyasha kale oo aan dhaqaalaha u sameeyno maxaa waa midkan waxa la faster bonus qofka markuu soo galo isla markii darajo kala aado soo ka soo qaad maanta soo gashay waxaad ku gaartay LD1 lifestyle advisor darajada ku xigta waxa waa LD1 waxa ku gaartay 7 cisho gudahood waxa teamka laga sameeyay haday dhahay 8% baraa ku leedahay 3 jibaarkeeda lagu siinayo haddii aad LD1 ku noqotay hal bil gudahoodana waxa ku helaysaa 2 jibaarkeed okay halkan waxa waaye markaa sameeyay mentorship dadka la taliye aan noqotid shoppingki free-ga aha again iyo heer waxa gaari kartaa company-ga dhan aad share ku leedahay aad ka sameyn kartid okay ugu dambeyn su'aashu waxa waaye ganacsigan sidee loo soo bandhigaa runtii ganacsigan aad u fudud yahay markii la fiiriyo faa'iidadiisa iyo suu u fudud yahay waxa waaye Soomaali waxa tiraahdaa waa kaafi kala dheeri subhanallah qof kasta meel kasta dunida ka joogo han noqdo waxbarashadiisa ama cilmigiisa meel kasta abayroodo cilmi oo kamid ah teamkeena liidarayaasheena markasta waxay tiraahdaa hadalay tiraahdaa jecla waxay ku leedahay qofka hadduu haysto PhD sayni ognahay PhD maxaa waaye cilmiga jaamacadda meesha ugu sareysa qofka professor yahay ama haddii uu yaqaan kaliya magaciisa sida loo qoro ganacsigan waa lagu talagalay saxiix xisaab male inta qof oo ganacsigan ku jirto weligood computer taaban English akhrin haddana maanta aniga iga firfircoon
because maxaa waaye ganacsi wixii dhan waxa waaye dadka un la wadaag dadka un baa la wadaagaysaa natiijada ilaahay subxaana watacaala gacanta ku jirtaa soo nooca ugu horeysa dadka wax oo la wadaagaysa maxaa waaye youtube haddaa gasho youtube-keenna oo taabatid qortid Opulence Global Company-geenna waxaa kuu soo baxaayo intaas oo ah videoyaal oo ka hadlaya alaabteenna anigana maxaa haystaa page-kayga YouTube Ifraax Essentials daa tagtid Soomaali afkeena hooyo iyadoo ah soo labadiba waa haystaa dadka un baa la wadaagaysa u dirdiraysa shaqadana waa lagu qabtay daawaa leedahay cajiladan iisoo sheeg wixii kaaga baxa haye maxaa kale midani online presentation waa waxa hadda idiin sameeyo kale dadkii inaad kula wadaagaysid online-kii presentationkaana markaad soo gasho company-ga wuxuu ku jirtaa website-kaaga ma aha waxani gooni ah ugu dambeyn waxay dhahaan placemat-kan midaan runtii waa midda aniga 90% aan ganacsiga ku dhisay waa midani qaarkii hadday daawanaysa waxaa laga yaabaa hadda ka hor inaad daawateen cajiradaan duubay sanad ka hor bahalladaana isticmaalaya okay halkaa maxay ku tusinaysaa fashion-keennii rag iyo dumarba ahaa poosh iyo feeri ahaa halkaana maxaa yaallo alaabteena weli caado waxaa ka maqan shaambadii haweenka iyo kii sprayga ka maqan okay alaabteena qofka markuu kan haysto wax kale uma baahna computer uma baahnid powerpoint uma baahnid hebelow kalena because wixii qofku arkaya alaabtan ma jeeda anaa iibiya okay midaana waxa waaye ganacsiga hadda ganacsiga aniga powerpoint ka sharxay ma aha qasab inaan ka sharxadid kuwana isticmaali kartaa waa kana ganacsiga sida loo ganacsado sida dhaqaalaha looga sameeyo wax kasta waa kaasa okay so taasna waa taasa so intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa ganacsigeena iyo alaabteena waxaynu iibinaa maxaan in kaga tagayaa maanta insha Allah waxaan kaga tagayaa halka waxa ku qoran timing is everything waqtiga waa wax kasta adduunka oo dhan maanta waxa la isku dhaafay waa waqtiga Soomaali waxay tiraahdaa talada waa maalin aad garan weydo iyo maalin aad gaari weydo maanta video-gan qof walaalada kula soo wadaaga wuxuu kula soo wadaaga wax kale ma aha naftiisa wuxuu la jeclaaday oo adan kula jeclaado waana tii nala faray hadaynu nahay islaan saasoo ay tahay qofba qof inta uu oo talaabadiisa ka soo horeeyo wuu ka faa'iido badan yahay waagi bariya iyo gobolkii dhaca dad baynu u sharxaynaa ganacsiga maanta waxaad u yeelatay fursad inaad noqoto dadkii maanta loo sharxay sababta ajiradan baa daawanaysaa haye marka haddii maanta markii aad fiirsatid aad ku qanacdid waxaad la xiriiraysaa qofkii kuu soo diray qofkii marka la xiriirtid uu ku registereeyo maadaama qofkan uusan meel fariisanayn waagi bari gobolkii dhaca dad la wadaagay sidaadoo kale markay dad tiimka ku soo biiraan maxaad fursad u lahaanaysaa dadkaas qaar ka mid ah in gadaashaada la dhigo waana dadkii hadhowti tiimkaaga markay noqdaan ay faa'iidadii company-ga ee badato ay shaqadii badato aad adigiina ka helaysid faa'iidadaadii okay weligeed fursadda waxa waa sida loo soo kala horeeyo Soomaali waxa maqli jiray koo dhahaan tuuladaas ka awow ugu horeeyay qofkii ugu horeeyay makhaayad ka dhisay maanta waa dadku ugu taajirsan waay suuqa ugu soo horeeyeen soo suuqa yaa lagaaga hormarin siiba xaaladda maanta adduunku taagan yahay cudurkan coronavirus oo adduunka maanta kala xiray runtii waxa kaliya looga samata baxay maxay noqotay online-kaas hadday noqoto cuntadii waa laga order gareen dharkii waa laga order gareen alaabtii kale waa laga order gareen anigaan idinla hadlaayo markii aan ka firaaqoobay inaan u shaqeeyo qof anigoo wala caado shaqo permanent oo dowladda haystay ka firaaqoob waxay ahayd cudurkan gudihiisa see ku dhacday dadka markii dhaqaalihii dhulka uu galay company-geena number 1 uu noqday cudurkaanuu jiro maxay ku dhacday online-ka inay noqoto waxa kaliya Soomaali waxay tiraahdaa biyo waxay isugu tagaan god waa meeshii la isugu tagaay soo maanta booskaaga qabsa insha Allah istiqaaraysa sideedoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala talada u dhiib isku soo tuur soona dhawo insha Allah waan rajeynayaa hal inaan idin soo dhaweyn doono aad baan soo salaamay waxaan kaga tagay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh